waxaa magaalada Frankfurt ee dalkani Jarmalka lagu qabtay xaflada aad u qiimo badan oo lagu xusayay 12 guuradii ka soo wareegtay maalintii Soomaaliya ay ka xorowday gumaystaha iyo waliba markii Puntland dibadda loo taagay oo ay ka soo wareegtay 14 sanadood markaasi oo ku beegnayd 1 August 1998 xafladda lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalkani Jarmalka ayaa runtii ahayd xaflad qiimaheedu aad u sareeyo taasi oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qurbo ka kala timi gobolada dalkani Jarmalka iyo waliba dalal fara badan oo ka tirsan qaaraddaas Yurub kuwaasi oo hamuun weyn u qabay sidii ay uga soo qayb galaan xafladaasi lagu xusayo 12 guuradii ka soo wareegtay maalintii calanka Soomaaliya ay qaadatay iyo waliba asaaska dawlad goboleedka waxaana halkaasi khudbado aad u qiimo badan oo soo jiitay indhihii iyo waliba dhagihii ka qaybgalayaasha xafladaasi ka jeediyay maamulka sare ee Jaaliyadda PDF Puntland Diaspora Forum iyo waliba saraakiil sare oo iyaguna xilal ka soo qabtay dawladda Soomaaliya iyo waliba aqoon-yahano halkaasi khudbadaha ay ka soo jeedinayaan runtii dadku ay aad ula dhaceen xafladaasi ayaa waxay ahayd mid runtii qiimaheedu aad u heer sareeyo xafladani lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda reer Puntland ee magaceeda lagu magacaabo Puntland Diaspora Forum qaybta Germany ayaa ahayd xaflad runtii si weyn loo soo agaasimay xafladaas oo ay ka soo qayb galeen fanaaniin magac ku leh bulshada Soomaalida dhexdooda iyo waliba martishada kale oo aad u qiimo badan fanaaniintii caawa goobta waxayna waxaa ka mid ahaa fanaanada caanka ee Aaminadhow waa markii ugu horeysay ee xaflad noocan oo kulminaysa sanad gurooyinka tii 12 ee ka soo wareegtay maalintii xorriyadda Soomaaliya iyo 14 guuradii ka soo wareegtay maalintii Puntland Mustafa Xaaji Aadan telefishinka caalamiga ee Cable TV Jarmalka